midna inay tiraahdo abaaye ma lagu sixray mid kale soo booda ay tiraahdo horta dhakhtar ma u tagtay mid kale soo booda tiraahdo sheekh ma u tagtay masaajidyada tag quraan ha lagu saaro jaa gabadha maxaa u sawirantay in adinkana maxaa la dhahaa ku tiimbargareynaysiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay hooyo Soomaaliyeed oo Mareykanka ku nool oo baraha bulshada ka soo muuqata oo dhibaataysan oo dhibaato badan tabanayso dhibaatadaas ha ahaato mid ka soo gaartay ninkii ay kala tageen aabihii ilmaha ka dhalay iyo xaalado nafsiyan ah marka waxaan arkay muuqaalo badan oo qaybna iyada ku saabsan iyo qayb live la soo galiyay oo lagu xaal wareysanayo marka waxa iga soo baxday meeshaas waxyaabo badan oo qaldan oo in ay isdaba ordayaan waxaan rabaa marka inaan laba u kala qaado wixii aan arkay tan koowaad hooyada Soomaaliyeed way iska dhibaataysan tahay ilaahay waxa uga baryaa inuu dhibka haysto ilaahay ka qaado ilmaheedana u badbaadiyo waayo qofka markuu kaligiis xanuunsan yahay oo qof kaligiis uu yahay waa iska kiis gooni ah laakiin markii qofka uu yahay marka ay tahay qof ilmo leh oo hooyo ilmo leh ay tahay uu ka xanuun badan yahay wuuna ka culays badan yahay run ahaantii waxaan aad ugu faraxsanahay inay jiraan dumar badan oo aad u naxariis badan oo jira oo raba inay caawiyaan gabadhaasi laakiin aan laba qayb u kala qaadno maxaa laga caawiyaa oo hooyadaas ay u baahan tahay waa su'aasha isweydiinta badan ma waxay u baahan tahay in dhaqaale ahaan laga caawiyo ma waxay u baahan tahay in sharci ahaan dhinaca sharciga laga caawiyo ma waxay u baahan tahay aniga markaan fiiriyay dhinacyo badan waxa ii soo baxday waxa ugu horeeya hooyada Soomaaliyeed u baahan tahay inay tahay dad ka caawiyo moral support dad garab istaago oo niyad ahaan caawiyo waxay u baahan tahay qof dhageysta waayo waxaan dhageysanayay barnaamij laga sameeyay oo lagu casuumay TikTok gabdho badan oo Soomaaliyeed oo qaarkood niyad samaan u raba inay u caawiyaan marka waxa iga soo baxday gabadhu waxay horta u baahan tahay oo aan ogaaday oo markii aan muddo dhageysanayo waxaan arkay inay u baahan tahay gabadhan qof dhageysto mararka qaar qofka guduhu ka gubanaya waxaa jira waxay xanuuno badan oo nafsiyan oo qofka haayo gabadhan waa gabar daalan waa gabar dhibaataysan waa gabar niyad jabsan waa gabar emotional damage badan oo soo gaaray waxay aaminsan tahay ninkii ilmihii ka dhalay ee ka tagay adduunka kaleeto sameysanayo ee naagta kala guursanayo iyo nolosha uu sameysanayo ayaa u sawiran marka xaaladan kaleetood iyo waxaan kale ee dadkan sheegayaan iyo waa ku caawinaynaa iyo maxaan kaa caawinaa iyo maxaa lagugu sameeyey iyo maxaa kaa qaldan iyo waxaasoo dhan gabadhan uma muuqdaan gabadhan waxay u baahan tahay dad u taga dad dhageysta dad dheeli xaaladeeda ula socda dada ula soo ordaya waxay leeyihiin abaaye dhakhtar ma tagtay maxay dhakhtar u tagay gabadhan markaad tiraahdo dhakhtar ma tagtay way kaa didaysaa sababtoo ah kiiska lagu haystaa waxyaabaha waxaa ka mid ah in la yiri gabadhan ilmo ma haysan karto oo ninkii ilmaha ka dhalay uu rabo inuu saas ilmaha uga qaato marka qof walba oo dhakhtar ma tagta dhaho ama dhakhtar maxaa u tagi weysa dhaho waxaa u soo sawirmayso in uu ninkaas sii caawinayo oo arrinteeda uu sii xoogeysanayo waxay ku leedahay waxaa aaminsanahay 100% inaa maskaxiyan ahaan caafimaad qabo way caafimaad qabtaa laakiin damage aa gaaray damage sidee dadka dhan damage kuma wada fahmi karaa gabadhan waxaa gaaray xanuun qalbiga ahaa gaaray waxay isla haysiisay noloshana sideeda waa iska qayaali maanta waa faraxsan tahay bari waa murugaysan tahay maanta jacayl ayaa haysataa bari cidlaa tahay nolosha dhanaa saas ku samaysan qof abadiyan garanti loo siiyey ma jirto oo la yiri weligaa farxada ku noolaanaya maalina oyne maalina faraxsan tahay maalina murugsan tahay maalina xanaaqsan tahay maalina dhibtoonta marka gabdhaha raba gabadhaas inay caawiyaan waxaa ila wanaagsan inay marka hore Minneapolis Soomaali badanaa degan dad badan oo waxaa jira caawin kara inay raadiyaan la kulmaan dhageystaan maalin walba adigoon la soo boodin talaan ku siina qofka sidiisaba marka horeba waa la dhageystaa waxaa fiican qofku waxa uu go'aanaya inaad ka dhageysatid sida uu asaga rabo inaad markaasaytid aad tartiib uga dhaadhicisid gabadhan hadda soo bax dhakhtaraa lagu geynaa soo baxsaana lagu sameynaa ama naayaa ninkii iska ilow horaan nimanka Soomaaliyeed naaga u guursan jireen faarax Soomaali la isku mahalay waxay tiri qof janno ku waxay tiri qof naar ku jiray tiri
janno iyo naaraa la sameeyey dhahda haddii qof adoo naar ku jirta haddii inta loogu imaado lagu dhaho si lagu geeyo jannada jannada maxay tahay haddii lagu dhaho oo ma aqaani aad tiraahdid oo lagu dhaho hays ma taqaanid maahano jannada waxay tahay may kusii jir jannadaada marka waxay tiri adinkana su-aalihiina saas camal waaye marka gabadhaas Soomaaliyeed oo maskiinta ah oo iska dhibaataysan koogu hore intaan lacagan kaa caawinaynaa iyo Afrikaan ku geynaynaa iyo quraana lagu soo saaraa iyo abaayo maxaa la dhahaa ma sheekhyaalka u tagtay masaajidyada waxaasoo dhan waxay u baahan tahay qofka inuu horta yahay qof macnaha asaga raba inuu xal raadiyo gabadhaan marabta inay xal raadiso gabadhaan hal waxa u sawiran hal muuqaala u sawiran muuqaalka u sawiran waa ninkii baxay naagta kala garabka ka sii haysto raba inuu nolol kala dhisto markii buuqeeda uu ku batanayay naagtu way xanuunsan tahay ilmaha la iiga qaado marka waxay ku leedahay ilmahaygaan badbaadsana waa run ilmaheeda ha badbaadsato laakiin adinkana maxaa la dhahaa la shaqeeya caawiya garab istaaga maqal ahaan kaliya waxa ma tartee dadka u dhow ha raadiyaan ha qiimeeyaan xaaladda ay ku sugan tahay taas waa taas tan labaad walaalayaal oo dumarkii waxaa la yiri geeli laba jirka soo wada marka waa aragnaa maalin walbo gabar walbo cabanayso oo ka sheeganayso nin ilmihii uga tagay kuwa waxa arkaysaa waxay haystaan special need ilmo badan oo haystaan gabdha haystaan ilaa 3-4 waxa arkaysaa ninkii ilmaha dhalay ka cararay ayaga kaligood horumar sameeyay gabadhan waxyaabaha ay ku doodayso waxa kamid ah waxay tiri 5 caruur aan haystaa ay dhahday kan ugu weyn waa autistic ee 8 jir ah aabihi dhalana waa kaasay tiri naagta kale tood rabo inuu guursado ama inuu qabo in kale ma aqaanay tiri oo rabo haddana inuu ilmo kala dhalo anigana iga cararay waa nasiib daro laakiin way dhacdaa maamulin waxyaabaha laga barto waxa kamid ah way dhacdaa marka way dhacday marka dhulka iska qaad insha Allah waxaan rajeynaa maalin ay waxa soo dhan ka soo gudubtay in la gaari doono waayo waxyaabahan way ku badan yihiin qurbaha nin ilmo iyo naag kale tood waxaan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed is dhageysta mararka qaarkood wax fiican adinkoo sameynaysiin ayaa haddana isbarbaryaacaysiin intaadan gabadhaas ay life-ka soo saarina adinka ku heshiiye su'aalaha aa weydiinaysiin waxyaabaha aa rabtiin inaa ka caawisiin iyo sida aa rabtiin inaa u caawisiin midna inay tiraahdo abaaye ma lagu sixray mid kale soo booda ay tiraahdo horta dhakhtar ma u tagtay mid kale soo booda tiraahdo sheekh ma u tagtay masaajidyada tag quraan ha lagu saaro jaa gabadha maxaa u sawirantay ina adinkana maxaa la dhahaa ku tiimbargareynaysiin inay maxaa la dhahaa waalanta gabadha ma waalan say idin sheegtay laakiin xaalad nafsiyan ay ku jirtaa marka xaalad nafsiyan way iska dhacdaa dad badan ay ku dhacdaa marka ilaahay waxaan uga baryayaa inay caafimaado ilmaheedana maxay ahayd uga badbaadiyo bal adinkana u duceeyo